بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود iyo meel kastoo adaabaha dunida ka joogtaan halkani waa CNA kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku faaqeynno doorashadii maanta ka dhacday Puntland isla markaasina ku guuleystay murashaxa Cabdilaahi Dani daawada barnaamijkan waxa igala qayb galaya wasiirkii hore qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee maamul goboleedka Soomaalida Jubbaland Cabdi Xuseen Cali isla markaasina haatan ah murashaxiinta hankoodu yahay inay ka noqdaan xil ka qabtaan deegaanada Jubbaland soo dhawaada ugu horeyn bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamantihiin CNA iyo bahdi warbaahinta oo maaragtay halkan ugu martaqaaday aad baan ugu faraxsanahay inaan maaragtay halkan doodan idin kala qayb qaato horta guud ahaan waxaan u hambaleynayaa Soomaalida meel kasta ay joogaan gaar ahaan reer Puntland iyo qaas ahaan saaxiibkay ahna wasiirka hore iyo siyaasiga haddana madaxweynaha hadda la doortay Jubbaland Dr. Saciid Cabdullaahi Gani marka haddaan ka waramo Gani horta waa muddo 2 sano oo dhawaadaan isla shaqaynaynay oo mar waxa wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga xilliga Xasan Sheekh waana nin aqoon-yahan oo maaragtay siyaasadiisa ay degan tahay oo maaragtay ixtiraam iyo xishmad ku dheehan tahay oo bisel siyaasadna ka muuqato oo maaragtay on qof aan iska hadlaynin oo iska wuxuu arkabaan ku boodeenin buu ahaa dabcan soo sheegtay muddo soo shaqaynayseen waxyaabaha ka xusi karta hab dhaqankiisa iyo qaab siyaasadeedkiisa maxaa kamid ah hab dhaqankiisa horta waa nin degan oo afgaaban oo ixtiraamka dadna u leh iyo shaqadiisana u leh hortaas aan u aqaano tan kale waa nin siyaasadiisa oo dhaxdhaxaada nin dhinac u janjeera ma sax intaan ka aqaano dabcan sida ay wada ogsoonahay hadda xaaladda deegaanada Puntland waxa ka jira saxar bar isla markaasina ciidanka inta badan way gadoodaan iyo kacban iyo mushaarlaan waxyaabahaas oo kale muxuu ka qaban karaa baas leedahay hadii loo doortay madaxweyne cusub ee horta waxa ilaahay waa mahadi horta hab hadda siyaasadda Soomaaliya u socoto ee maaragtay siyaasadda guud oo wadanka ka jirta iyo qaabka hadda loo wajahayo oo maaragtay oo shacabka Soomaaliyeed ay fahamsan ama ay fahameen in hogaamiye kooxeedkii iyo qabyaaladii iyo isqa qabsigii iyo reereerkii laga soo gudbayo oo hadda doorasho iyo cod loo gudbay horta waxa mahad iska leh baarlamaanada Puntland oo maaragtay si hore cadaalad ah u doorteen ayaga kalena ma aha doorashada waxay ka dhacday koonfur galbeed baarlamaanadii ay soo doortay isbedel bay keeneen Puntland ay u gudbeen waa tanana wada arkaynay wada daawanayna si ay wax u dhaceen birine laga yaabo in Jubbaland ka dhacdo Hirshabelle ka dhacdo oo meesha la yiraahdo Galmudug ka dhacdo marka horta waxa mahad iska leh ama mahad celinaya guud ahaan nimanka baarlamaanka oo reer Puntland oo maaragtay bisel siyaasadeed la yimaado si xor iyo cadaalad u doorteen sax tan kale Saciid maadaama uu yahay nin aqoon-yahan oo siyaasi oo dawladdan xil ka qabtay reer Puntland oo hadda nin qurbaawi uu sanayn oo muddana dhex joogay waxyaalo badan oo hadda maaragtay aan filayo inuu sameyn karo مثلا hadda siyaasadda hore Cabdiweli waxaad moodaa isqa qabsi asagiyo oo maaragtay dawladda dhexe baa meesha ka jirtay reer Jubbaland waad arkaysay carbararkii iyo waxay waa dadkii noloshooda waa cariiri bay ku noqotay waxbarashadii isbitaaladii maaragtay qutul daruurigii oo maaragtay maamooyinkii qudaarta tagadanaya wax gadan waayeen marka waxaan filayaa horta koow inuu mudnaanta shacabka reer Puntland uu siiyo oo maaragtay xaalad adag oo hadda ku jiraan inuu ka soo saaro oo dhaqaale oo maaragtay oo wax ka duwan siyaasadii hore oo ninkaas ay koreeyay Cabdiweli Gaas uu ku dhaqmay mid ka duwan inuu la yimaado qaab maaragtay ha noqoto economico dhaqaale ahaan noqoto bulsho ahaan noqoto maaragtay xiriirka dawladda dhexe ha noqoto
wax badan qaabka hadda reer Puntland ay ku maaragtay ugu tegey cabdiweli oo culays fara badan sabab dhaqaalaha Puntland hoos uu tagay eber buu noqday haye arrimaha bulshada waad og tahay arrimaha siyaasadda waad og tahay meel ay marayaan waxaasoo dhan marka culays baa looga tagay Dr. Saciid marka waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay meeshaas horta ka soo amba qaado oo wax badan nidaam dawli iyo siyaasadda isku xiro oo ummadda maaragtay bulshada horumar gaarsiin filaya inaan intaan garanayo waa nin hamigiisii uu fiican yahay oo uma Soomaalidana isku keeni karo mathalan hadda dagaal ka socda Somaliland iyo Puntland oo la isku haystaa meesha la yiraahdo Qarq waxaan filaynaa inuusan noqonin mid maaragtay huriya dagaalkaas laakiin uu noqdo nin odayo Soomaaliyeed oo isbedel keeno oo maaragtay ummadaas labada dhinac horta wax degan shisheeye ama Soomaali wey inuu dadkan isku keeno oo waawaanta dhex dhigo oo maaragtay ciidamada hadda soo fadhiya la kala qaado oo wax bedel ummadana maaragtay ka badbaadiyo dhibaatada horta aan ka rajaynaynaa waana filaynaa inuu sameyn karo aqoonteedana uu leeyahay marka waa nin maaragtay dhinacyo fara badan hadaa laga fiiriyo oo isbedel badan keeni karo runtii maaragtay guud ahaan Soomaaliya iyo maxaan ku yiraahdaa Jubbaland dabcan waxa sheegtay markii aad wasiir ku-xigeenka ahayd maamulka Jubbaland in aad wada shaqeyseen waxyaabihii ama qaabka aad u xisi karto qaabka wada shaqeystaan iyo qaabka uu shaqeeyo maxaa dadweynaha Soomaaliyeed ku daawanayay horta Saciid intaan garanay horta nin ballan leh waay waxaad ku ballantaan sidii siyaasiyiinta qaarkood waxbaad ku ballamaysaan lagama yaabo inay fuliyaan ama waqti dheer kugu qaadani ama laga yaabo telefoonada ata dadka shacabka caadiga telefoona kama qabanayaan Saciid saas maaha Saciid waxaad ku ballantaan barnaamijka aad ku ballantaan waad ugu imaanaysaa sababtoo anaga beriga ani kale maaha intii wasiirada ama wasiir ku-xigeenada qorsheynta xiriirka caalamiga ka wada shaqeeyay oo maamul goboleedada oo dhan asaga u siimaanayay waana nala shaqeynayay xuquuq ay leedahay maamul goboleed uu siin jiray waxa maaragtay intuu wax xoolahiisa ahaan maadaama federaalku joogay ma cishan jirin qolo walba wadadeedii iyo xaqeedii iyo nidaam ay leedahay uu siin jiray waana nala shaqeyn jiray nin ictiraam badan horta u lahaa dada marka xilka qabtaan oo isla weeyihiin oo caalamka bas looga yaqaano telefoonna lagama helay hadda aqoon hore u leedahay hadda kalaba madhab ma arkaysid Saciid saas maaha Saciid telefoon walba oo siyaasi ha noqdo intaan garanay iyo ama dadka shaqada u dhaxaysa ha noqdo oo maaragtay wada shaqeyn u dhaxaysa noqdo telefoon ka qabanaya tan kale barnaamijka markaas waxaa jiray dawladda dhexe iyo maamul goboleedada la isku xirayay arrimaha qorsheynta xiriirka caalamiga laga shaqeynay waana la shaqeynaa runtii wax walba meesha ay marayeen buu noo sheegi jiray asagoo wasiira meel walba aduu barnaamijka dawladda dhexe ku soo dhaco wuxuu wacaya wasiirada maamul goboleedada qorsheynta xiriirka caalamiga xamar la isugu tagi jiray halkaas amar barnaamij ka fulin jiray marka muddada la shaqeynaa waxaan ka bartay horta inuu baalan leeyahay tan kale inuusan isla weyni lahayn tan kale nin dantiisa iyo danta ummadda ka horumarinaya waxaa jirtay inuu isla maanta warqad soo saaray madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland isla markaasina xilnibaad geliyay xisaabaadkii ay dawladda ku lahayd xawaaladaha gaarka loo leeyahay bangiyada si aan loogu takrifalin qaab nooceed u aragtaa warqadda uu soo saaray digreetadii u horeysay oo ku mamnuucay xisaabaadkaas ama Saciid maanta hada waa sax weeye sababtoo ah meesha maamul baa ka jiray maamulka haduu tagayo laga reeyo laga yaabo in hantidii ummadda oo meesha taale lala baxay wasiiradii hore jiray isbedel baa imaan marka sax weeye in xanibo oo wixii ummadda hantida ummadda maar xoolaha ummadana lala baxsanin oo wax intuu xanibo xisaabadii xil kala wareejinta ay ka dhacayaan صح ومامول دولي أو سحظة ويرنده طبعا waxaa jira in xiriirka dawladda dhexe iyo dawladda Puntland murugsanaa xilligii madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas qaab nooceeya ay ula shaqeyn karaan wada marinaysa dawladdan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horka horta asaga muusan ahayn ee xiriir xumada waxay u kala dhaxeeyay Cabdiweli iyo dawladda dhexe asaga maadaama cusub yahay horta su'aasha meesha taala dawlad ma laga maarmi karaa waa صح Puntland dawlad gooni maaha waa dawladda حمين كامل دولة دحوي وولي وريو دولة دحوي دتك ما فدراليزم دتك أساسي مركا سعيد وح شخص جيسة
horta meesha hadduu la imaado waa barnaamij qaldan weeye laakiin umalayn ma inuu la imaanayo laakiin xiriirka in dowlad iyo maamul goboleed laisu keeno wax kasta niyadiisa ku jirnaatee waa ku qasban yahay waa inuu sameeyaa waana sameyn doonaa sababtoo ah ummaddan siyaasad xumadii hore oo uu ka dhaxlay madaxweynihii hore inuu u dhaqmo maaha inuu ummadda isu keeno reer puntland waxay rabaan shacabka inuu raaco wey shacabka reer puntland waxay rabaan ma rabaan inay kala go-aan ayagii xiriirkii ayagiiyo dowladda dhexe in waxii khilaafaadku jira wadahadal lagu dhameeyo iyo iyagii dowlad ay ka mid yihiin ximin dowlad ka mid ahayeen dowladoodii iyo iyagii maaragta isfahamaan oo wadajir waxa laisla shaqeeyo saciidna hormuuduu ka noqon karaayo isbedelkaas waxaan ka filaynaa inuu keenayo dabcan puntland madaxweyne cusub bay yeelatay adigu maxaad ka filaysaa inay puntland hanaan noocee ah ay hadda ka hirgeliso siyaasadeed maadaama siyaasaddii puntland hore aan soo wada aragnay waa mid cakiran oo ku dhisnayd isqabaqabsi dowladda dhexe iyo dowladdii puntland dabcan ciidamaduna ay marar badan gadoodeen hanaan noocee ah ayay wadada saari kartaa puntland xilligan maya puntland horta waxay saari kartaa isbedel dhaba oo siyaasadda horta way soo gaadhay waxyaalaha maaragtay maamul xumada meesha ka dhacay iyo iska qabsiga dowladda dhexe iyo dhaqaale xumidii iyo ciidamadii iyo shaqaalaha rayidka ama kuwii dowladda oona mushaar la siinin waa caqabad weyn horta oo ninka cabdiweli ugu tegay mudane saciid cabdulaahi hase yeeshee maadaama ninkan aqoonna uu leeyahay oo nin hawladiska soo booday oon maaragta xil loo dhiba maaha dowladuu soo maray xukuumad kala duwan uu kasoo shaqeeyey marka waxaan filaynaa horta inuu caqabadaas inuu xaliyo oo intuusan horta dowladda dhexe iyo barnaamijkaasa loo boodinba gudaha intuu xaliyo gudaha nafteeda qasan reer puntland way kala qaybsanaayeen qaar xukuumadda cabdiweli diidanay qaabka wax u socdaan ee nadaab xumadii diidanay oo qaar asag la shaqaysanayay oo maaragtay oo isku maamulka isku jira ay ahayn marka waxaan oo dhan inuu maaragtay isu keeno oo maaragtay ciidamadii iyo shaqaalahii dowladda xaqooda mushaarkooda la siiyo horta howl badan baa u taala ilaa u fududeeyo taa markuu kasoo gudbo waxaana wuxuu ku qasban yahay inuu isku xiro dowladda dhexe iyo maaragtay puntland kama maarmi karto dowladda dhexena puntland kama maarmi karto runtii dabcan waxaa jiray heshiisyo uu soo galay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas uu la galay shirkadda dhanka dekedaha d b wall mustaqbalka heshiisyadaas maxay noqon karaan waxay ku xiran tahay heshiiska horta cabdiweli galay inta ugu badan waa heshiis madowey heshiis saxa ma aha heshiis maamul hadduu maamul kale ka daba yimaadana qasab maaha heshiiska uu maamulkii ama madaxweynihii hore saxiixay inaad ku dhaqaaqdo waa la fiirinayaa de waxay la saxiixay ay yihiin wax mustaqbalka reer puntland dan u ah haddaa yihiin ahaa waa la qaadanaya hadduusan hayna waa la tuuraya oo de mid kale u cusuman iyo bog cusuman iyo nidaam cusuman oo danta ummadda ku jirta lasoo maraya waxaa jiray in maamul goboleedadu ay shireen iyagoo horkacayeen cabdiweli iyo madaxweyne maamul goboleedka jubbaland axmed madoobe ay xiriirka u gooyeen dowladda dhexe dabcan cabdiweli waxa uu isaga kusii diray inaanay dowladda dhexe ka qaybgeli karin doorashooyinka puntland ka dhacaya maanta markii ay maqleen dowladda dhexe guusha murashax saciid cabdilaahi deni dabcan wafdi baa tagtay tegitaanka wafdiga adigu aragtay hansaad u aragtaa waa sax weeye wafdiga sababtoo nimankan caqabad bay ahayd waxaad moodaa uu nimankii hogaamiye kooxeedka oo maaragtay aan hubeysaneen laakiin qaab kala siyaasadeed u hubeysanaa dowladdan xariir u jarayna markaay leeyihin horta dowladda ma iyagma dowlad gooniba waa su-aasha lasweydiya meesha ku jirta waa maamul goboleed oo dowladda federaalka soomaaliya ka mid wey waayahayd waad u jartay hageed aadi yaad ku xirantaa marka ama yaad la xirani horta waxyaala siyaasad xumad oo nimankaas ay maaragta ku dhaqaaqeen shacabka soomaalida runtii way ku faraxsan yahay ummaddan inay meesha dhaafto hadba midka kala dhaafo sababtoo horumarka ummadda dalka iyo dadka nimanka hortaagan weeye oo maaragtay cadowga shabaab a waxa loo xoreyn waayey siyaasad midaysan ayagii dowladda iskuma xirno markay dowlad fikradda la imaada iyaga xagga ujeesanaya waa la kala dudayo quwad gooni bay ahay nimankan ay samaysanayeen marka taasna inuu ilaahay ummadda ka qaado culeyskaas horta waa aad u fiican dowlad marka waxay ku faraxsan tahay oo wafti u diraysaa dee ninka shalay ayaga hortaagna meeshuu ka baxay xariir cusub iyo wadahadal iyo hambaliyo iyo siyaasad cusub iyo policy cusub ay meesha dowladda ay maaragtay ay wadataa
kan ha la qaato ama ha ka diido, laakiin waxaa laga maarmaana dowladda dhexe in wada hadal iyo wada shaqayn dhex marto maamul goboleedka. صح dabcan haddii intaa kasoo dhaafna arrimaha Puntland adigu siyaasi baa tahay kasoo jeeda deegaanada Jubbaland waxaa socota hadda xoreyn al-shabaab lagaga xoreynayo caasimadii rasmiga ahayd ee Jubbaland aragtidaada xoreynta ku aadan maxay tahay horeynta horta waxyaala qaarkood waa iska maaragtay ruwaayad ummadda lagu maran habaabinayo weeye. xoreynta dowlad waa ka filaynay ama maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda dhexe inay iskaashi sameeyaan oo culeyska meesha ka jiro siiba jubbada dhexe in la qaado waa waxaan haminayno oo maaragtay muddo badan ku celcelinaynay, laakiin ninkii meesha joogo wuxuu leeyahay in dowladda lama shaqeynayo. dee dowladda haddaadan la shaqeynaynin ma aqaan wuxuu la shaqeynayo. tan kale hadda wuxuu leeyahay waa xoreynaya. Kismaayo iyo meesha la yidhaha Afmadow waa 120 kilo isu jiraan. diyaaraddu ku tagay Afmadow Axmedoobi. hadday xoreyn u baahan tahay xoreynta waxaa la rabaa in laga soo bilaabo Kismaayo iyo maara duleelkeeda kulle nimankan way taagan yihiin, shabaabku way taagan yihiin. cashuurta habeenkii maalintii waxaa qaataa dowladda Jubbaland, habeenkiina qoladan shabaabka qaadata. marka niman meesha taagan xoreynta hadii aad leedahay baan xoreynayaa Afmadow diyaarad ku tagaysa ciidanka meesha ku waruurayso, aniga waxaan u arkaa xoreyn ma ahine marin habaabin ummadda deegaanka lagu marin habaabinayo oo ummadda la isku dirayo oo maaragtay shacabka jubbada dhexe la isku horkeenayo oo maaragtay fidna laga dhex abuurayo. taasna waxaan leeyahay reer jubbada dhexe ama Jubbaland guud ahaan inaanan waxyaalo Axmed Madoobe wado inaanan qaadanin oona iyaga dhexdooda aanan isku laabanin oo maaragtay ayaga fikirkooda uu noqdo nimana reer Jubbaland ay yihiin oo culeyskana uu saaran yahay goortii laga qaadaba cidii ka qaadaysaba laga qaaday. laakiin orodkan uu leeyahay Axmed Madoobe wax baan xoreynaya dadka deegaanka lama tashanin, warka ma hayaan. dee marka meesha la rabo inaad wax horeyso waa inaad la shaqeyso shacabka. dee shabaabka shacabkii bay dhex joogaan, information aad ka heshaaba ciidan aad maaragtay dhalinyarada ka soo goostaan dhinaca ciidan laga qoraba saahida laga helaba siyaabo badan baa laga shaqeyn karaa. laakiin waan ordayo meeshaan xoreyn inta la ummadda la marin habaabiyo ummadda been leh uu sheego inuu isku diro ummadda intuu isku mashquuliyo hadda isagaa lagu mashquulsan yahay. dee mucaarad buu noqday oo isagana waa la mucaaraday. dee wuxuu 7 sano meesha joogaa wuxuu qabto male wada meesha la rabay inaan dhulka la xoreeyo oo dhaqaalaha gobolka maamulka kor u kaco oo shaqaalaha ay mushaar helaan, ciidamada mushaar helaan, nolol helaan aan rajeynaynay waxna meesha ma dhaafsana. dabcan waxaa la filayaa in deegaanada Jubbaland isbedel ka dhaco sidii hore uga dhacay Puntland Koonfur Galbeed. adiga isbedelkaaga aragtidaas ku aadan ee doorashooyinka la filayay inay ka dhacaan Jubbaland saad aragtaa? annaga insha Allahu tacaala waan isbedel weyn baan ka rajeynaynaa. meesha saaxiibadiisa mareen inuu maran Axmedna waan rajeynaynaa oo isbedel oo dhaba oo dalkan iyo ummadan oo maaragtay horumariyo oo culeyska jirana ka qaado oo Kismaayano dhaafsan ma rabno maamul intuu imaado isbedel haddana meeshii shalay Axmed fadhiyey uu iska fadhiisto dooni mayna. laakiin waxaan anaga rabnaa ama aan wadnaa isbedel siyaasadeed oo musharax la keenaba mid dowladda iyo shacabkaba uu la shaqeeyo uusan mucaarad ahayn oo ummadda horumar gaarsiiyo oo ummadana maaragtay cadaalad iyo sinaan u sameeyo. cabdi xuseen cali waxaa soo noqotay wasiirkii ku-xigeenkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee maamulka Jubbaland. muxuu yahay hankaaga siyaasadeed ee waqtiga fog? insha Allah anaga horta loolanka waa ku jirnaa meesha waxaan ka rajeynaynaa horta anaga naftaan inaan maaragtay isbedelkaas socda inaan qayb ka noqono oo ummadaas culeyska in laga qaado oo horumar iyo barwaaqa la gaarsiiyo horta waan rajeynaynaa. waxyaalahan shalay meesha ugu soo tagnay wax la mid ah inaan ku noqono ma rabno. waan rabnaa wax isbedelkaas dhaafsan oo maaragtay ummadda wax loogu qabto ayaan rajeynaynaa. anigana musharax baan ahay xilkaan rabaa maaragtay aan u tartame waan u socdaa Jubbaland insha Allah. dowladda federaalka Soomaaliya ee hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay dalkeeda ka caarisay ninkii u qaabilsanaa qaramada midoobay. adiga aragtidaadu maxay tahay? aniga horta guud ahaan dowladda waan ku taageersanaa arrinta ayada
sababtoo ah dowladda horta arrimaha xiriirka caalamiga ama siyaasadda guud oo arrimaha xiriirka dibidda way ku guuleysatay. sababtoo dowladda waa in go-aankeedu socdaa. dowladda niman shaqaalo meesha la keenay inay dowladda maamulaan horta qalad weeye. waxyaalaha maaragtay xukuumadii hore lasoo maray ay sameeyeen ay ahayd. laakiin dowladdan hadda jirto iyo nabad iyo nolol horta anigu waan ku taageerayaa inay maaragtay arrimaha foreign policy-ga inay kaga adkaadaan oo maaragtay dowladda ay noqoto mid waxna hadalkeeda la qaato ayadana hadalkeeda maaragtay ay meel mariso. laakiin dowlad loo meeriyo dowladda maaha. markaa nin 100% aan ku taageersanahay in la ceyriyo. sababta qof shaqaale imaad inuu xukuumaddii meesha joogtay madaxdii horta intuusan wax falin inuu warka gaarsiiyo la shira ahayd. maxaa la yidhaha ninkii Harrison wasiirka arrimaha dibidda uu la hadlaya arrimaha dibidda arrimaha gudaha dabcan waa warqadda uu ka kacay khilaafku. sideeba loo arki karaa ama dadka shacabka Soomaaliyeed turjuman karaa in xogayaha ninka ergeyga qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan oo warqad u diro wasiirka arrimaha arrin aad u foolxun oo qalad weeye. sababtoo ah ninkan aduu barnaamij rabo inuu wax weydiiyo wasiirka arrimaha dibidda jira, ra'iisul wasaaraha jira, madaxweynaha jira, ra'iisul wasaare ku-xigeenaa jira, wasiirka arrimaha gudaha masaga Soomaaliya gudaha uu la maamula Soomaalida. waa waxyaalaha qaladkaan la yaabna weeye. marka dowladda inay ceyriso horta way ku quman tahay. dad baa hadlayo buuqayo Soomaaliya cunaqabateena lagu sameynaya way ma baaba'ayso. qofkan dadkan oo meesha fadhiyo ninkan ceyriyey waa dad nidaam dowli yaqaan waxay ku ceyriyaan yaqaana. dad iskama ceyrin. marka way ku quman yihiin. aniga waxaan 100% waan ku taageersanahay arrinta ayadaha. dabcan miyaan la odhan karin waxa uu dhaawac yeelaya xiriirkii Soomaaliya iyo qaramada midoobay maadaama qaramada midoobay Soomaaliya ka taageerto dhanka ciidan mushaar bixinta ciidanka hadday noqoto kuwa amisom iyo hadday noqoto shaqaalaha dowladda qaarkood. absolutely macnaheeda ma aha mushaaran ku siinay sidaan rabaan ka yeelanaya. arrintu ma aha nidaam shuruucda caalamiga jirta diblomaasi kasta qaabku u dhaqmay waa u qoran tahay. hadduusan qof aqoonin waa kugu tumanayo xuquuqdaada ma taqaanid. laakiin haddaad xuquuqdaada iyo sharciga nidaamka taqaanid dee waa saas. hadduu galamar waa la iska qabanaya. tan kale mushaar UN ay boolis siinaysaa iyo tanaa nagala goosanayo UN hadduu nin ergiga diblomaasi ay soo dirsadeen uu qaldamo oo ay la qaldaman ay leeyihiin ma qaldami karo mushaaraan goosanaynaa dee awalba waxay dad siinayaan aan bijirinba. laakiin hadday hadda siduu ninka maxaa la yidhahdaa Antonio Guterres si sax buu sameeyey. dee arrintii ninka ambassadorka meesha fadhiyay nani ambassador Abukar oo UN tu fadhiyey Soomaaliya hadalkiisana uu dhageystay kana uu dhageystay ergeyga gaarka la ciirinaya Harrison. hadalkii buu isku miisaamay maaragtay golaha maanka uu shir la galay go-aankiina wuu qaatay mid kalena waa lagu bedelay. dabcan haddeen xusno khudbaddii uu Haysom ka jeediyey qaramada midoobay haba yaraatee kuma xusin in dowladda Soomaaliya ay dalkii ka soo caraysay ama uu khilaaf ama uu dembi ka soo galay Soomaaliya. waxaad moodaysay qaab diblomaasiyadeed ay ku dheehan tahay farshaxanimo inuu u jilay uu yidhi Soomaaliya dowladdu wax badan bay qabatay waan taageersanahay. horta hadduu dhahay hadduusan dhahinba warka waa ka horreeya isaga. waxuu asaga hadda dadka u sheegaya maba jiraanba. tan kale diblomaasi kastaba hadduuba la ceyriyo ma aha inuu yidhahdo waa la ceyriyey. luqad diblomaasiga maaha. haddaa la ceyriyey waxay u taallaa mas-uulkiisa inuu tallaabadaas qaato. asaga hadduu maalan uu yidhahdo waa la ceyriyey dembiga lagu ceyri buu qiranaya halkaa. marka waxaa lagugu ceyrinaya waa meesha taalla wey. marka ma dhahi karo luqad diblomaasi maaha. dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waxay hadda xilka hayaan 3 sano marka la eego 2 sano. 2 sano dabcan maxaa u qabsoomaa la odhan karaa ee mudan ee la xusi karaa. horta wadanka weli siyaasadiisana ma fadhido sababtoo wadanka nabad maaha. weli waxyaalo fara badan culays baa iska jira. wadanka hadduusan amnigiisan la suginna caqabad waa iska jirtaa. hase yeeshee arrimaha dibidda horta wax badan bay ka qabteen. waa meesha Soomaaliya ka burburta ahayd. maalan waxyaalaha ay qabteen oo hadda xasuusta
arrimaha dibidda horta waxay ogoleysiiyeen ama ay ka dhaadhiciyeen beesha caalamka in dowladda soomaaliya go-aan ay yeelan karto oona loo meerin karin xaquuqdeedana garanayso. horta taas waa laguma degdego, hadda soomaaliya waa laga dambeeyaa sidii beesha wadamada kale oo xor ah lala dhaqmaa. tii labaad waad ogtahay qoladaa nii sheegay UNDP 27 sano 30 sano hawada soomaaliya gacanta ku haysay, halkaana balaayin doolara lagu cunayay. waxay ku guuleysatay in ay geyso muqdisho oo arrintaas ay ka dhabayso, hawada soomaaliya ay lasoo noqoto oo ayada hadda maaragtay garoonka xalane lagu maamulayay. tii labaad awal marka shacabka soomaalidu ka soo kacaan magaalada la yiraahdo xamar Kenya marka ay imaanayaan, waad ogtahay wajeera lasoo mari jiray, dhib fara badana lagala kulmi jiray, culeyska baaritaan iyo xag dowladdu waxay ku dadaashay in arrintaas ay saxdo oo maaragtay laga qaado meesha garoonka wajeer inaana lagu baarin. tii saddexaad dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed oo ku xiran wadamada badan oo jaarka ah, Ethiopia, Kenya iyo Tanzania, carabaha wax badan baa ku xirnay, ilaa Liibiya ay ku xirnaayeen. dowladdu waxay ku guuleysatay in dadkaas oo dhan wax loo qabto la soo celiyo, oo intii laga gaarayay dhalinyarada soomaaliyeed intii dhimatmaan inta kale lasoo badbaadiyo. daraatii ugu dambeysay Tanzania dadku xirna baa lasoo daayay. marka waxyaalahaas kulli waa guusha la taaban karo in dowladda soomaaliya ay yeelatay xanaan oo dowlado kale oo la gorgortami karto, la hadli karto, oo maaragtay xuquuqdeeda iyo tii ummadeedaba u doodi karto. waxaa jira heshiis in badan la dhaleelay oo ay 3 dowladood galeen, Ethiopia, Soomaaliya, Eritrea. dabcan shacabka Soomaaliyeed way kasoo horjeesteen dowladda heer la gaarsiiyay dekedaha bixinaysaba. adiga aragtida heshiiskaas iskaashiga maxay tahay? horta Soomaalidu badanaha wax waa dhageysan ma akhriyaan. marka la dhulku baxiyay ama dhulka ay bixiyeen, horta dhulka ma aha qalab meel yaalo boorso lagu qaato ma ama maaragtay inta ciidan jawaan lagu shubto la dhameeysta ma ciidaada iyo dhulkaada anaguna askale Soomaali baa askale. heshiis caalami waa la gari karaa. dhulkaada aad khayraad leedahay, khayraadku waxaa rabtaa cid maaragtay aad ka macaashid oo heshiis ganacsi oo caalami ah lala galo, oo maaragtay wadan kasta oo caalam ka mid ah dhaqaalihiis mu ka kacaa, wadamada kale lala heshiiyaa sida maaragtay meel walbaba caalamka dekedaha lala heshiiyaa, korontada wadamada qaarkood lala heshiiyaa, maaragtay biyagelinta, isbitaalada, investmentka waa inuu socdaa. marka Soomaali waxay rabtaa nimanka mucaarada waxan badanaa dadka ummad ka dhaadhiciya. nimanka hadda saas u dhaleelinay Soomaaliya oo Eritrea iyo Ethiopia la heshiisay waa nimanka shalay basaasin u ahaayeen Ethiopia. nimanka xildhibaanada hadda meesha ku jira oo mucaaradka oo waxaan waday ayagaa shalay basaas Tigray bay u ahaayeen. marka adi ninkan heshiis uu la soo galay, heshiis horta ma ku soo gaarin. heshiis marka la leeshiinay guddi khubraa loo xilsaaraa, arrimaha wasiirada arrimaha dibadda ka shaqeeya, guddi farsamada khubrada marka loo geeyo oo tala bixiyaan baarlamaanka la geeyaa. baarlamaanka ama waa codeeyaa ama wuu diidaa. tiiba lama soo gaarin maxad ku mucaaraday oo leedahay dhulka la gatay. ugu dambeyntii barnaamijkeena gabagabadiisa weyn maraynaa, maxay tahay fariinta aad u gudbiso shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya? horta shacabka Soomaaliya waxaan ula talinayaa inay bisel noqdaan. propaganda iyo qabyaalad iyo hogaamiye kooxeedka iyo kooxeysi iyo group iyo inay ka baxaan oo fikradoodii iyo codkooda ay wax ku goostaan. horta taasaan ula maaragtay dardaarmaya Soomaalidu. dowladdana waxaan leeyahay in shacabkeeda ay dhageysato oo ummadeeda khayraad wadanka waa khayraad buu leeyahay. Soomaaliya wax ka tujaarsan ma laha in culeyska saaran oo maaragtay shabaabka inay ka qaadaan ayagoo la kaashanaya maamul goboleedada. haddaan ayag iyo maamul goboleedada isku fikir iyo isku siyaasadda guud oo amniga ama wax walba noqonin, waxay noqonaysaa ijidan ku jido saasay ummadan waqti kaga lumi, ayagina ayagoo waxba qabanin oo wax la taabtaan arrintooda bisleenay 2020 ay ku soo galaysaa. marka waxaa ila quman in nidaam dawliga la gaarsiyo gobolada oo ummadda iyo maamulku meeshii jiro oo ay noqonin mindi ku taaga, laakiin lala heshiiyo wadada ummad Soomaali weeye. marka nin dawladda ay tira may hadalkeenu la maqlo
wax kala soconaya male xaggaba in laismaqlaa fiican intaasi daawadayaal waxaan eega barnaamij gaar ah aan ku wareysanay cabdi xuseen cali oo hore u soo noqday wasiir ku-xigeenkii iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ee maamul goboleedka Soomaalida Jubbaland isla markaasina la faanqeynaya doorashadii ka dhacday maamulka Puntland tan iyo inta kulmi doona daawadayaal barnaamijkan lamid ah waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo وما سنتهاي عبد الحسين شكرا نوري شكرا ما سنتهاي شكرا